السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحد يعفي ما يغبى عن دير هاتشين يا خيار تشرفت بدن مقال كان وحن كوغو شيغي دونا أفر si fudud aad ugu daweyn karto xanuunka gaaska adoo gurigaaga jooga adigaan dhakhtar tagin ay iskaga dabiibi karto ama aad ku daweyn karto xanuunka gaasku qaybo badan buu jirkeena kaga dhacaa waxa jira xanuun la yiraahdo esophagus gastritis oo qaybta hunguriga ku dhaca sidoo kale upper gastritis baa jira stomachal ulcers baa jira xanuunka gastrigu waa uu badan yahay laakiin afartani si guud ayay dhammaan ku caawinayaan xanuunada gaaska gaar ahaan stomachal ulcerska caloosha nabarrada ku samaysma ayuu ka caawin doonaan sidoo kale waxay ka caawinayaan gaaska ama markaas ay aashitada ama ay siida subaxii soo kacda ee qaybta sare hunguriga u soo kacda ayay ka caawinayaan qaybta koobaad waa 4 glass of water 4 glass oo biyo ayaad cabaysaa salaada hore calooshaada maran ilaa inta calooshu buuxsamayso biyaha waad ku wadaysaa haddii aad biyaha joogtayso xanuunka gaasku uu kici maayo waxaana isku arki doontaa maalinba maalinta ka dambaysa xanuunkii aad ka bogsanaya haddaad subax kasta every single morning subax kasta haddii aad isticmaasho biyahaas 4 galaas oo biyaha haddaad isticmaasho way ka degi doonaan qaybta kale waa xulbada oo iyadana habeenkii aad sii radiso subaxii cabitaan ahaan hal galaas ka cabto xulbada soo qaadanaysaa kadibna waad tamiraha biyaha ku radinaysaa subaxii baad shiidaysaa waad cabaysaa calooshaada oo maran iyadana nabarka calooshana way ku dhayaysaa calooshana way ku socodsiinaysaa dacartana way nuugaysaa ama qaraska way nuugaysaa aashitada way nuugaysaa aysiidha way nuugaysaa nabarkiina wuu soo bogsan doonaa haddii aad ku joogtaysana gaasku kici maayo xanuunkana waa ka raysanaysaa qaybta saddexaad waxaad joogtaynaysaa haddaad heli karto coconut water biyaha coconutka biyaha qumbaha biyaha ku dhex jira biyahaasi waa biyo dabeeciya biyahaasi waxay u fiican yihiin nabarka ku samaysma caloosha ee luqadda caafimaadka loo yaqaano stomachal ulcer kaas ayay u fiican yihiin haddaad cabto oo aad joogtayso oo aad subax kasta isticmaasho waxay kuu galayaan booska xulbadda waxay kuu galayaan booska cabitaanka biyaha qaybta ugu dambaysa ee runtii aadka u muhiimka ah xanuunka gaaska aad kaga bogsan karta haddii aad joogtayso waxa weeyaan waa qudaarta baamiyaha oo intaad shiido caanaad ku darto afartaas ayaa kaa bogsiin kara si dabeeci ah. Assalaamu calaykum.